waqtigu markuu ku beegnaa sanadkii 1966 nin kabtan Australian ayaa wuxuu soo maray isagoo wata laash yar jasiirad yar oo laga guuray dhinaceeda, laakiin isagoo eegaya jasiiradii oo ku eegaya diiradiisii wuxuu arkay qiiq dheer oo ka soo baxaya jasiiradda dhankeeda, wuuna la yaabay arrinkaas. Sida ayuu qiiq uga soo baxaya jasiirad cidla oo aan cidiba deganayn, isagoo eegaya oo la yaaban arrinkiina si kadisa nin ayaa ka soo dhex baxay geedihii dhexdoodii. ninka halkaas ka soo baxayna wuxuu xidhnaa surwaal yar oo gaaban, timihiisuna waxay ahaayeen qaar ku baxay oo dhaadheer, wuxuuna u ekaa sidii inuu ka soo jeedo qabiilo ka go'an caalamka kale oo ku nool halkan. ninkaasina markii uu sidaas u arkay laashkii wuxuu bilaabay inuu qayliyo uu gacanta u taago, markiibana wuxuu isku soo tuuray baddii wuxuuna u soo dabaashay dhankii laashka. markana kabtankii laashka watay wuxuu dareemay cabsi, wuxuuna soo qabsaday kabtankii qorigiisii laashka u dhex yaalay, wuxuuna u diyaargaroobay inuu ku rido ninkan dhankiisa u soo socda. markii uu soo gaadhay ninkii kabtankii waxa u caddaatay kabtankii in qofkan uu yahay wiil dhalinyara oo daadiisu aanay gaadhinba 20 sano. wuxuuna ku yidhi wiilkaasi kabtankii magacaygu waa Steven, waxaana jira 5 wiil oo kale oo jasiiradda jooga, waxaanan ku dhex lunnay oon ku dhex xanibnayn jasiiraddan dhexdeeda muddo 15 bilood ah. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qiso badbaaditaan oo aad u cajiiba oo ku saabsan 6 wiil oo qorshahoodu uu ahaa inay ka baxsadaan iskuulkoodii ay dhigan jireen, laakiin xaalkoodu uu ku soo dhammaaday inay ku lumaan oo ay ku dhex xanibmaan jasiirad laga guuray. sida ayuu arrinkaasi ku dhacay, sida ayna kaga badbaadeen dhalinyartaasi meeshaas cidlada muddadaas dheer ee 15 bilood ah. waxaan ku ogaan doonaa arrimahaas oo dhan muuqaalkeena maanta. qisadeena maanta waxay ka bilaabanaysaa taariikhdu markay ahayd sanadkii 1965. dal yar oo lagu magacaabo Tonga. dowladdan yar ee lagu magacaabo Tonga waa dal ka kooban jasiirado yaryar oo ku dhex yaala badweynta Baasifiga, waxayna dhacdaa bariga dalka Australia. cidda ay ku saabsan tahay qisadeenuna waa 60 wiil ee sawirkoodu idiin muuqdo, waxaana lagu kala magacaabayay Sioni, Mano, Steven, Kolo, David iyo Luke. waxayna ahaayeen 60 wiil arday wax ka baratay iskuul Katolika, macnaha waxay dhigan jireen iskuul diineed. iskuulkanna wuxuu ahaa iskuul boarding oo ardaydu intay wax ka bartaan aanay ka bixin oo keliya, laakiin gudihiisa ay dhex degan yihiin oo ay ku noolaadaan gudihiisa. cuntadooda iyo cabitaankooda iyo hurdadooduna waxay ku lahaayeen iskuulkan dhexdiisa. iskuulkan ay dhigan jireen 60 wiil wuxuu lahaa xeerar iyo qawaaniin aad u adag, ardaydana ku ah cidhiidhiya inaanay xorriyaddooda helaynin, loomana ogolayn inay ka baxaan iskuulka ilaa 1 maalin mooye wiigga oo dhan. maalintaasna isha ayaa lagu haynayaa oo macallimiinta ayaa ka warhaynaya waxay qabanayaan ardaydu. dabcan macallimiinta iskuulkanna waxay ahaayeen baadariyaal, waxayna ula dhaqmi jireen ardayda qaab adag. haddii ay sameeyaan wax qaldanna mararka qaar waxay marin jireen ciqaabo aad u adag ardayda. 60 wiil ee qisadeenu ay ku saabsan tahay oo wakhtigaas daadoodu ay u dhexaysay 14 ilaa 16 sano, waxay dareemeen cidhiidhi iyo caburin aad u daran wadciga ay ku jiraan ee ay ku nool yihiin iskuulkan dhexdiisa dartii. markastoo ay wada fadhiistaan oo ay wada sheekaystaanna waxay ka wada hadli jireen nolosha xorriyadda iyo raaxada ah, waxayna ku riyoon jireen caalam kale oo dhexdiisa ay ku samayn karaan wax kastoo ay doonayaan. maalin maalmaha ka midan ayagoo wada sheekaysanaya oo isu yimi xilligii qadada, wiilkii ugu weynaa 6dooda oo magaciisu ahaa Sioni ayaa wuxuu ku yidhi asxaabtiisii, maxaynu baxsan weynay oo naga baxsan weynay iskuulkan. mid ka mid ah asxaabtiisii ayaa hadalkii ku soo celiyay oo weydiiyey halka ayanu baxsanaa. wuxuuna ugu jawaabay Sioni, waxaynu aadaynaa dowladda Fiji. dowladdan lagu magacaabo Fijina iyaduna sidoo kale waa dowlad yar oo kaaga dhow Tonga oo ku dhex taala badweynta Baasifiga, laakiin waa jasiirad ka weyn oo ka horumarsan jasiiradda ay deganaayeen ee Tonga, waxayna ka fog tahay oo u dhexeeya masaafo dheer. 6dii wiil waxay bilaabeen inay qorsheeyaan safarkoodan dheer ay isku waafaqeen inay galaan si ay uga baxsadaan iskuulkooda. waxa ugu horeeya ay u baahnaayeen wuxuu ahaa laash, laakiin maadaama aan iyagu lahayn wax laasha, waxay go'aansadeen inay ka soo xadaan oday weyn oo cadho badnaa laashkiisa. odaygan oo isaga iyaga dhexdooda ay hore dhibaato yari uga dhexaysay, odaygaas ayna doorteen inay ka xadaan laashka. 6dii wiil waxay go'aansadeen in safarkoodu uu bilowdo wakhtiga habeenimada si ay u helaan wakhti dheer oo ay kaga fogaadaan jasiiradda ay degan yihiin ka hor intaan la ogaan inay baxsadeen. kadib marka ay dhaaftay 1 saac meelaha wakhtigii la seexanayay iskuulka, oo ahayd markii ay hubiyeen intii badnayd ardaydii iyo macallimiintiiba inay wada seexdeen, si bilaasan qadha ay uga soo baxeen qolalkoodii waxayna fuuleen derbigii iskuulka, wayna ka dhaceen halkaas oo way baxsadeen. intaa kadibna waxay aadeen xeebtii, halkaas oo ay ka heleen laashkii odaygii cadhada badnaa iska lahaa ee ay nacbaayeen. alaabtoodii ay siteen ayayna saarteen laashkii waxayna dejiyeen shiraacii.
waxay siteen alaabtoodii asaasiga ahayd sida cunto iyo cabitaan iyo khudaar. sidoo kalena waxay soo qaateen shoolad yar oo gaas ku shaqaynaysa si ay ugu karsadaan kalluunka ay ka ugaarsadaan badda. laakiin 60 wiil midkoodna kuma fikirin inuu soo qaado jiheeye ama khariirad. masaafada u dhaxaysa meesha ay ka imanayaan ee Tonga iyo meesha ay ku socdeen ee Fiji waxay ahayd masaafo ka badan 750 kiiloomitir. haddana iyadoo ay sidaa tahay midkoodna kuma fikirin inuu soo qaado qalabka ugu fudud ee ka caawin lahaa inay jidkooda si toosan ugu socdaan. dabcan xitaa haddii ay soo qaadan lahaayeen jiheeye iyo khariirad, safar noocan oo kale oo sidan u dheeri waa mid ay adag tahay inay galaan wiilal yaryar oo dhowr iyo 10 jir ah oo aan weligood ku safrin badda. waxay bilaabeen safarkii waxaana socday meelaha 2 saacadood. markanna waxay noqdeen qaar ka fog oo ka fogaaday xeebtii meesha ay ka yimaadeen ee Tonga. waqtigiina wuxuu soo dhowaaday subaxii. markanna wiilashii waxay dareemeen daal iyo tacab, sababtoo ah ilaa waqtigan may seexan oo waxay ahaayeen qaar soo jeeda. umanay baran sidoo kale inay dhafraan waqti dambe, sababtoo ah iskuulkooda ayaa u diidi jiray oo aan u ogolayn inay soo jeedaan oo ay dhafraan. tanna waxay ku ahayd tijaabo cusub inay ilaa xilligan yihiin kuwa soo jeeda. sidaa darteed si ayar waxay bilaabeen inay mid u gamaan oo ay u seexdaan ilaa dhammaantood ay wada seexdeen. laashka ay saarnaayeenna shiraaciisu uu furnaa, dabayshuna waxay u waday way u leexleexinaysay kolba meesha ay doonto. wiilashiina waxay ku tooseen codka hilaaca iyo onkodka. waxa ku dhuftay dabayl iyo roob xoogan iyagoo badda dhexdeedii socda, waxayna ka tooseen hurdadii iyagoo cabsanaya. wixii koowaad ay sameeyeenna wuxuu ahaa inay kor u qaadeen shiraacii laashka, sababtoo ah haddii shiraacu uu hoos u dhigan yahay oo dabayl xooganna ay dhacayso, dabaysha ayaa ku ciyaaraysa laashka oo meesha ay doonto geynaysa. laakiin ka hor intaanay kor u qaadin shiraacii wuxuu bilaabay inuu googo'o. marka horeba wuxuu ahaa shiraac qadiimiya oo xaaladiisu aanay wanaagsanayn, dabayshiina way sii kala googoysay. 6 wiilna waxay ahaayeen qaar isku dayay intii dabayshaas xooggan ay socotay inaanay ka dhicin laashka oo gacmaha si xooggan uga haysta. ugu dambayna dabayshii way degtay, jawigeena uu hagaagay. laakiin hadda dhalinyaradii waxay ku jiraan xaaladaan wanaagsanayn. ma oga meel ay u socdaan, mana awoodaan xitaa inay kaantaroolaan jihada uu aadayo laashku, sababtoo ah shiraac ma haystaan oo uu googa'ay shiraacoodii. waxayna ku jireen xaalkaas muddo 8 maalmood oo mawjada baddu ay kolba dhinac u tuurayeen, iyagoo waqtigaas oo dhan isku dayay inay nafahooda u badbaadaan. cuntadoodii iyo khudradoodii yarayda ay wateenna way dhammaatay. ugaarsigii kalluunka islahaayeen wuxuu noqon doonaa mid fududna uu ka adkaaday sidii ay u malaynayeen. sidoo kale biyihii yara ay siteen yagiina way dhammaadeen. waxayna bilaabeen inay ku urursadaan qumbihii ay siteen biyaha roobka. macnaha qumba ay u kala goynayeen 2 qaybood, kadibna waxay ka dhiganayeen sida koobab oo kale, waxayna ku ururinayeen biyaha roobka si ay u cabbaan. xitaa waxay u samaysteen jadwal xilliga ay cabbayaan biyaha. mid kastaana wuxuu cabbayay xad yar oo biya, dhibco yaryar oo ay beerka uun ku qooyaan, sababtoo ah haddii biyo ay ka dhammaadaan bartaas ay noloshoodu ku dhammaanaysaa. ugu dambayn kadib 8 maalmood markay xaaladaas ay ku jireen, maalintii 9aad waxay dusha ka arkeen jasiirad. jasiiraddanna waxay ahayd barrigii ugu horreeyay ay arkaan laga soo bilaabo markii ay ka soo dhaqaaqeen jasiiraddoodii. dabcan may haysan shiraac ay ugu jeediyaan laashka dhanka jasiiraddaas oo ay dhankeeda ku aadaan. waxayna bilaabeen inay gacmahooda ku jeediyaan laashkii oo biyo ay ku kala duwaan gacmahooda ilaa ay ku soo dhowaadeen jasiiraddii. kadibna waxay ka soo boodeen laashkii, waxayna u soo dabaasheen dhankii jasiiradda. laashkiina waxay kaga tageen badda dhexdeedii, sababtoo ah waxay ku soo jiidaan muu lahayn. yagiina waxay u soo dabaasheen dhankii jasiiradda. marka ay sidaa u soo gaadheen jasiiraddiina way istuureen bartii ayna seexdeen. manay soo toosin maalintii dambe markii qoraxdii ay soo baxday mooyaane. halkanna waxa uga bilowday safarka ku noolaanshaha jasiiraddan. safarkan oo noqon doona mid aad uga dheer midka ay qorsheynayeen iyagu markii hore. jasiiraddan ay gaadheen 60 wiil waxay ahayd jasiirad lagu magacaabo Ata, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay jasiirad laga guuray oo cidlo ahayd muddo 100 sannadood ah. 100 sannadood ka hor ayaa waxaa ku noolaa jasiiraddan qaar ka mid a dadkii iska lahaa dhulkan, dadkaasoo tiradoodu laga yaabo inay gaadhaysay 100. laakiin waxaa ku soo duulay reer Yurubkii dadka kaxaysan jiray ee addoonsan jiray. dhammaantoodna way wada kaxaysteen oo waxay ka dhigteen addoomo. kamay hadhin xitaa dadkii halkan ku noolaa hal mid oo ka mid ah, ha yaraado ama ha weynaado, ha ahaada dumar ama ha ahaada rag. dhab ahaantiina way wada kaxaysteen dhammaantood dadkii jasiiraddan deganaa. laga soo bilaabo waqtigaasna jasiiraddani waxay ahayd mid cidla oo laga tegay. wiilashii 6 ahaa marka ay ka soo tooseen hurdadii, waxay bilaabeen inay daydayaan biyo iyo cunto, waxayna soo jajabsadeen dhirtii halkaas ku taalay, iyagoo ku qoray dhirtaas dhagaxaan kadibna bilaabay inay ku ugaarsadaan kalluunka.
laakiin may haysan dab ay ku karsadaan kalluunkan ay soo qabsadaan, sidaa darteed waxay ku qasbanayeen inay cunaan kalluunka isagoo qaydhin. sidaasna waxay ku heleen cunto, laakiin waxay ahaayeen qaar haraadsan, manay awoodin inay helaan meel ay ka cabbaan biyo la cabbi karo. sidaa darteed waxay bilaabeen inay qabqabsadaan shimbiro, kadibna ay dhiiggooda cabbaan oo ay qaataan beedkooda, kadibna ay cabbaan isna. cunto kasta iyo cabbitaan kasta oo ay helaan haba ahaada mid aan wanaagsanayne, iyaga wuxuu ahaa nimco weyn oo ay heleen, wuxuuna u ahaa iyaga cuntada ugu wanaagsan adduunyada. Any food, anything to drink. Any food, no matter how awful it is and how dirty it is, it's a very beautiful thing to have it in that time. kadib markii wiilasha ay wax cuneen oo ay soo ceshadeen xoogaa tamartoodii, waxay bilaabeen inay iktishaafaan jasiiraddii oo ay koraan dhirteedii iyo buuraheedii. iyagoo baadhbaadhayna waxay meel ka heleen agab muhiima. dabcan meeshan ay alaabta ka heleen waxa deganaa oo iska lahaa dadkii meeshan u dhashay ee la addoonsaday. meeshanna waxay ka heleen weelal iyo midiyo qadiimiya oo meesha yaalla, xitaa waxay ka heleen meesha digaagado. arrinkanna wuxuu ahaa iyaga qaniimo weyn iyo wax weyn oo ay heleen, manay filanayn marnaba inay heli doonaan waxan oo kale. intaa kadibna waxay bilaabeen inay isku dayaan inay shitaan dab. arrinkanna wuxuu ka qaatay wakhti dheer iyo isku dayo tiro badan, laakiin ugu dambayn way ku guulaysteen inay shidaan dabkii. maadaama dabcan ay shideen dabkii oo arrinkan uu uga dhignaa arrin qaaliyana, si ay u ilaashadaan dabkan waxay samaysteen jadwal ay u bixiyeen jadwalka ilaalinta dabka. mid kasta oo ka midana wakhti ayuu ahaa mid shida dabka oo ku gura xaabo iyo qoryo. habeenkii marka ay tahayna waxay ahaayeen qaar isugu yimaada dabka hareerihiisa oo gacmaha iswada qabsada, halkaasna ku heesa oo ku qaada heeso. heesahan ay halkaas ku qaadi jireenna waxay ahaayeen heese diiniya oo ahaa kuwii lagu baray iskuulkooda dhexdiisa. hadda ayna dareemeen faa'iidadii iskuulkoodu lahaa. waana arrin cajiiba, qofku marka uu ku jiro nimco dhexdeeda ma dareemo nimcadaas ilaa marka uu waayo oo ay ka tagta nimcadaasi mooyaane. dhallinyartaasna waxaan hubaa in maalin kasta oo ku soo martay jasiiraddaas cidlada dhexdeeda inay ahaayeen qaar tamaniya inay joogi lahaayeen iskuulkoodii, ay waxaan oo dhan u sameeyeen sida ay uga baxsan lahaayeen isaga. laakiin dhallinyartani may ahayn qaar farsamo daran oo iska fadhiistay meeshii, waxayna isku dayeen inay ka faa'iidaystaan wax kasta oo hareerahooda yaalla. xitaa waxay ka faa'iidaysteen caleemiga timireedada ee halkaas ku yaallay oo ay ka dhisteen buul yar oo ay galaan. sidoo kale waxay samaysteen beer ay ku beereen muus iyo fuul. dhab ahaantiina aaday u shaqeeyeen dhallinyartani, kumanay koobnaan baahiyaha asaasiga inay helaan oo keliya, ee waxay samaysteen xitaa jiim iyo meel ay ku jimicsadaan oo ay yaalaan culaysyo. sidoo kale waxay samaysteen meel ay ku ciyaaraan ciyaarta taniska. mid ka midana wuxuu samaystay gitaar uu ka sameeyey looxyaya diirka sare ee qumbaha. dabcan arrimuhuna markasta may ahayn qaar ku socda qaab wanaagsan, macnaha maadaama ay ahaayeen wiilal yaryar oo aan weli gaadhin 20 jirka. waa caadi in dhexdooda ay ka dhacaan khilaafyo iyo dhibaatooyin, laakiin xitaa arrinkaas laftiisa waxay u sameeyeen nidaam ay ku wajahaan. haddii laba ka mid ah isdagaalaan, xeerka u dhigteen wuxuu ahaa in labadooda mid kastaaba uu u baxo oo aado cidhif ka mid a cidhifyada jasiiradda oo ay aad u kala fogaadaan muddo maalma. dabcan dhanka xaaladda nafsiga ay ku jireen dhallinyartani sidoo kale wuxuu ahaa mid adag. maalin kasta oo soo martana waxay ahaayeen qaar ka sii qaada quus ah inaanay mar dambe ku laaban doonin magaaladoodii iyo qoysaskoodii. laakiin iyadoo quustu ay jirta, haddana mar kasta waxaa ku jiray amal iyo rajo. waxayna isku dayeen mar inay ka sameeyaan geedii ku yaalay jasiiradda laash yar, iyagoo ka rajo qaba inay kaxaystaan laashkan yar oo ay kaga gudbaan badda. laakiin laashkan yari muu iska xejin awooddoodii marka ay fuuleen, markiibana wuxuu ku qarqoomay biyihii. waxaana laga yaabaa in arrinkani uu ahaa iyaga mid wanaagsanba, sababtoo ah haddii ay kaxaysan lahaayeen oo ay badda kula fogaan lahaayeen, wuxuu kula degi lahaa laashkan yar ay samaysteen meel dhexe, halkaasna waxaa ku liqi lahayd badda. 6dii wiilna waxay joogeen jasiiraddaas, waxayna ahaayeen qaar qaybsaday hawlihii iyo shaqooyinkii. mid dabka ilaaliya, mid xayawaanada ay haystaan xanaaneeya, mid beerta ka shaqeeya, mid badda ilaaliya waxa soo maraya. shaqooyinkan ay isu direenna waxay ka dhigeen qaar mashquula. arrinkan ismashquulintaana wuxuu ahaa arrinka ka caawiyey inaanay gelin xaalad isku buuqa. waxa socday muddo 15 bilood iyagoo ku xaniban jasiiraddaas. maalin maalmaha ka mida wiilkii lagu magacaabayay Steven ayaa wuxuu ahaa ka mas'uulka inuu ilaaliyo cidda soo maraysa badda. wuxuuna ku istaagay meel taagaasi oo halkaas uga eego waxa badda soo mara, inay bal soo marta meesha doon. dhab ahaantiina wakhtigaas markii ugu horeysay wuxuu milicsaday laash ama doon yar oo jasiiradda agteeda maraysa. wuxuuna ka soo degay meeshii taagada ahayd ee uu saarnaa. wuxuuna bilaabay inuu gacmaha u taago uu u qayliyo qofkii laashkaas watay.
intaa kadibna wuxuu galay baddii wuxuuna u soo dabaashay dhankii laashka. markii uu laashkii soo gaadhayna wuxuu arkay ninkii laashka watay oo qorigiisii ku soo jeediyey dhankiisa. intaa kadib Stephen gacmii ayuu kor u taagay wuxuuna ku yidhi ninkii laashka watay, magacaygu waa Stephen, waxaana jira 5 wiil oo kale oo jasiiradda jooga. waxaan ku lunnay oon ku xanibnay meeshan muddo 15 bilood ah. kabtankii doonteer watayna wuxuu ka leexiyey qorigii wuuna isbaray cidda uu yahay. kabtankan waxaa lagu magacaabayay Peter Warner, wuxuuna ahaa ugaadhsada kalluunka ugaadhsada oo Australiyaan ah. wuxuuna sheegay ninkan inuu arkay markii jasiiraddan uu soo dhawaaday qiiq ka soo baxaya geedaha jasiiraddan dhexdooda. wuuna la yaabay wuxuuna u soo dhawaaday jasiiraddii si uu eega waxa ka dhacaya meesha, sababtoo ah sida uu ku ogaa jasiiraddani waxay ahayd midaan la deganayn. markii uu la kulmay wiilkii Stephen ayuuna fahmay waxa dhacaya iyo wiilasha meeshan ku soo lumay. 5 wiil ee kalena sidoo kale waxay u soo dabaasheen dhankii laashka, waxayna soo fuuleen laashkii. kabtankii Peter wuxuu qoray magacyadoodii wiilashan, wuxuuna wacay xarunta qaybta qaabilsan xeebaha, kuwaasoo iyaguna u xaqiijiyay inay jiraan wiilashaasi oo ay yihiin qaar la weysanaa muddo ka badan 1 sano. waxaana lagu tiriyeyba wiilashaasi inay dhinteen oo aanay noolayn hadda. xitaa eheladoodii iyo qoysaskoodii waxay u dhigeen wiilashan janaasooyin. arrintanna waxay ku ahayd arrin kadis iyo saamayn ku yeelatay kabtankii helay wiilashan ee Peter. And the operator very tearfully said, "It's true. These boys were students at this college. They've been given up for dead. Funerals have been held, and now you found them." That was a very emotional moment for all of us. dabcan wiilashii marka ay garowsadeen inay ku laaban doonaan guryahoodii iyo qoysaskoodii, waxay dareemeen dareen aan la tilmaami karin oo aad u farxad badan. You were going home. Yes, How did that feel? like walking through the door to heaven. laakiin farxaddaasi umay dhammaystirmeen dhallinyartii 6 ahayd, sababtoo marka ay soo gaadheen xeebtii ugu horeysay waa la qabtay oo waa la xidhay. maxay tahay sababta loo xidhay wiilashan? sababtu waxay tahay odayga cadhada badnaa ay ka soo xadeen laashka markii hore ay soo baxsanayeen ayaa ciidanka ka dacweeyey, sidaa darteedna marka ay sidaa u soo gaadheen xeebtii ugu horeysay waa la xidhay. wiilashii yaryaraa ee ka soo baxay dhibka iyo ka goonaanta ay ka goonaayeen caalamka intiisa kale muu siin odaygii wakhti yar oo ay ku neefsadaan, xitaa markiibana wuu xidhay. ninkii kabtanka ahaa ee soo badbaadiyey wiilashan ee lagu magacaabayey Peter ayaa wuxuu go'aansaday inuu caawiyo wiilashan mar labaad. Peterkana wuxuu ahaa wiil uu dhalay nin hantiila oo ka soo jeeda dalka Australia. isagoo isaga laftiisu aanu ahayn hantiilana, haddana wuxuu la lahaa xidhiidho wanaagsan iclaamka iyo warbaahinta qaybo ka mid ah. wuxuuna la xidhiidhay mid ka mid a kanaalada laga leeyahay dalka Australia oo lagu magacaabayey The 7 Channel. wuxuuna u soo bandhigay qisada wiilashan isagoo ku yidhi ka warama haddii aad ka samaysaan qisadan film documentary-a. waa sheeko cusub oo mar dhoweed dhacday oo aad nooc cajiiba. channelkaasina waxay u howlgaleen samaynta filimkaas, waxayna u direen koox muuqaal duubayaala, iyagoo siiyey Peter xoogaa yar oo lacag oo horumarina. Peterna wuxuu qaaday lacagtaas ay siiyeen TV-gu wuxuuna siiyey odayga ay wiilashu laashka ka xadeen lacagtii laashkiisa. sidaa darteed odaygii uu tanaasulay oo uu sii daayay dhallinyartii. wiilashiina way ka soo baxeen xabsigii. laga soo bilaabo marka ay xabsiga ka soo baxeenna waxay bilaabeen kooxdii muuqaalada duubaysa inay ka duubaan wiilashii muuqaalo. intaa kadib Peter wuxuu ku qaaday wiilashii laashkiisii wuxuuna geeyey jasiiradda ay ka soo baxsadeen ee eheladooda iyo qoysaskoodu ay degganaayeen, sababtoo weli ma iman jasiiraddii oo intaana iman ayaa magaalo kale lagu xidhay. waxayna duubeen muuqaal duubayaashii wakhtigii wiilashu ay soo gaadheen guryahoodii iyo eheladoodii. kadib wakhtigaas dheer ay ka maqnaayeen oo ahayd kadib marka ay ka quusteen qoysaskoodu ay isdhaheen way dhinteen. waxaana laga arkayay oohinta iyo dareemada kacsan ee ay ku soo dhoweeyeen qoysaskoodu wiilashan. dhab ahaantiina waa xaalad adag oo aanu sawiran karin qof ku noolaaday mooyaane, bal ila yara sawiro qof aad jeceshahay oo hal mar uun qarsooma, oo aad ku qanacday inuu qofkaasi dhintay oo aanu noolayn, laakiin uu si kadisa u soo laabto 15 bilood kadib. maxaad dareemi lahayd wakhtigaas? waa dareen aanu qofku xitaa iska sawiran karin ilaa uu dhex kale mooyaane. waxaana loo sameeyey xaflado iyo soo dhoweyn wiilashii. intaa kadib dhowr maalmood markii ay joogeen oo ay nasteen wiilashii, qoysaskoodiina ay la qaateen wakhti, waxaa loo soo diray muuqaal duubayaashii mar kale. waxaana laga duubay muuqaaladii aan ku soo dhex aragnay muuqaalka dhexdiisa, si loo muujiyo xaalka ay ku noolaayeen wiilashaasi intii ay ku xanibnaayeen jasiiraddaas iyo dhacdooyinkii soo maray. dabcan wiilashiina may rabin mar dambe inay ku laabtaan iskuulkii, waxayna la shaqeeyeen kabtankii caawiye ee Peter, iyagoo kala shaqeeyey shaqadii ugaadhsiga.
intaa kadibna mid kastaaba wuxuu raacay nolosha waddadiisii wuxuuna qabtay shaqo ka duwan ka kale laakiin ilaa hadda mid ka mid ah wiilashii oo ah kii lagu magacaabayay Mano ayaa weli la shaqeeya Peter ilaa maantana waa dad saaxiiba oo aad isugu dhow. intaasi uu ka eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.